bal ka waran saaxiibayaal haddii lagu geeyo jasiirad cidlo ah halkaas oo aysan jirin khad ama se qof aad la hadashaa sidoo kale aysan jirin qof kuu heliyeela imise cisho ayay kugu qadan lahayd inaad halkaa ku noolaato filimkeenna maantuna sheekadaas ayuu ku saabsan yahay haddaba sheekadu waxay ku bilaabaysaa gabadh dhallinyaro ah oo ku hafanaysa meel u dhow jasiirad go'doona waxay la dhibaatoonaysaa sida ay nafteeda u badbaadin lahayd laakiin waa tuma gabadhani sidee ayay halka ku timid iyadoo keligeed ah badweyntan dhexdeeda si aan taas u fahanno waxaynu u baahannahay inaan dib ugu laabanno bilowga filimka waxaanana la baraya laba walaalo ah Lori iyo walaashad ka yar Erin walaalahan waxay fasax u tageen goob dal Lori waxay muujinaysaa deganaan laakiin qalbiga ayay ka murugoonaysaa maalin ganab ah iyagoo qada ka cunaya hotel Lori waxay ugu dambeyntii ku dhiirataa inay Erin u sheegto sirta ay ka qarinayso Lori waxay u sheegtaa Erin inay dhowaan ogaatay in ninkeeda Mike oo khiyaamayo oo uu xiriir leeyahay naag kale waxa ugu latinta badanna waa in naagta kale ee uu ku khiyaamaya ay uur u leedahay markii ay taas maqashay Erin aad ayay u naxday way rumaysan weyday waxay maqlayso waxay weydiisay Lori sababta ay ula joogto nin khiyaamaya Erin waxay walaasheed u sheegtay inay ka tagto oo ay nolol cusub bilowdo laakiin Lori aad ayay u wareersan tahay waxay dareemaysaa inay ku go'doosan tahay dareenkeeda ma garanayso inay la joogto iyo inay ka tagto waxay ka cabsanaysaa inay qaadato go'aan khaldan markaas ayay Erin diratay inay muddo dheer ogay xiriirka Mike iyo gabadha kale ka dhexeeya waxaana ku sharaxday inay aamusto si aanay u burburin guurka walaasheed halka ay fahmi lahayd dareenka Erin Lori aad ayay uga cadhootay waxay dareentay in walaashad khiyaantay waxayna ku eedaysay Erin inay runta ka qarisay oo ay Mike taageertay wax yar kadib sheekadii waxay isku beddeshaa dood kulul Erin oo qalbi jabtay sidoo kalena cadhaysan meeshii ayay ka baxday maalintii xigtay labada walaalaha ahi waxay qorsheeyeen inay diyaarad raacaan oo ku laabtaan gurigoodii Lori waxay tagtay xilli hore waxay sugaysay Erin laakiin Erin ma iman khilaafkii dhacay darteed Erin waxay taleefankeeda gelisay silent waxayna ku dhageysatay dhammaan wicitaanadii Lori markii waqtigu dhammaaday Lori waxay ogaatay in Erin aanay imanaynin kadib markay muddo dheer sugtayna Lori waxay ugu dambeyntii go'aasatay inay diyaaradda raacdo iyadoo keligeeda wax yar ka hor intaanay diyaaraddu kicin gabadha shaqaalaha diyaaradda ayaa Lori weydiisay markii ugu dambeysay walaasheed inay imanayso waxayna u sheegtay Lori inay diyaaraddu sugi karto 5 daqiiqo oo kale ugu dambeyn way iman weyday diyaaraddiina waa kacday gudaha diyaaradda bilowgii wax walba waxay u muuqdeen kuwo caadi ah Lori waxay la kulantaa lamaano waayeel ah oo u socday inay u dabaaldegaan sanad guuradii arooskooda waxay la sheekaysatay iyaga dareenka guud ee diyaaradduna wuxuu ahaa mid farxad leh laakiin si lama filaan ah diyaaraddii ayaa bilowday inay si xoog leh u ruxmato cabsi ayaa ku baahday rakaabkii xitaa duuliyihii diyaaradda ayaa argagaxay diyaaraddii waxay gashay duufaan xoogan dabaylo iyo roobab culus ayaa ku habsaday cimilafumada jirta darteed dab ayaa ka kacay diyaaraddii duuliyihii wuxuu isku dayay inuu xakameeyo laakiin awooddii ayaa ka baxday wax yar kadib diyaaraddii waxay ku dhacday badweyn waxaana aynu aragnaa markii warku gaadhay dowladda iyo booliska warkii ayaa isqabsaday kooxihii gurmadka ayaa maalmo badan raadinayay diyaaradda laakiin ma ay helin wax burbur ah ama dad badbaaday ugu dambeyntii kiiskii waa la xidhay qof kastaa wuxuu rumaysnaa in diyaaraddu ay ku dhacday badda oo ay quustay markii Erin warkaas ay maqashay aad ayay u naxday waxay dareentay dembi iyo murugo waxay ka codsatay maamulka inay sii wadaan raadinta walaasheed laakiin cidna ma dhagaysan dadka oo dhamma waxay rumaysnaayeen in Lori ay dhimatay xitaa Mike oo ahaa ninkeeda kama xumaan geerida si degdeg ah ayuu aqbalay dhimashadeeda noloshiisana wuu sii waday laakiin Erin way diiday inay taas rumaysato gudaha wadnaheeda waxay ka dareemisay in walaasheed ay weli nooshahay waxay go'aansatay inaysan quusan waxayna bilowday baadhitaan gaar ah maalin maalmaha ka mid ah waxay ogaatay in kaarka bangiga ee Lori laga isticmaalay tuulo yar oo ku taala goob kale dhowr maalmood ka hor arrintani waxay Erin ku abuurtay rajo waxay markiiba u sheegtay Mike laakiin mar kale dan kama gelin iyadoo aan cidna taageero ka helin Erin waxay go'aansatay inay keligeed raadiso walaasheed waxay raacday goobtii dukaanka waxayna u safartay halkaas sheekadu waxay dib loogu celinaysaa maalintii shilka diyaaradda markii diyaaraddu dhacday waxay ku dhacday badweyn nasiib wanaag kursigii ay Lori ku fadhiday wuxuu noqday midka ugu sayfsan diyaaradda oo dhan sidaas darteed ayay kaga badbaaday shilkii markii ay Lori ka baxday burburkii diyaaradda waxay ogaatay inay ku go'doonsan tahay jasiirad cidlo ah ma jirin dad guryo wadooyin ama calaamado muujinaya inay dad ku nool yihiin meel u dhow Lori waxay ku aragtay duuliyihii Daniel oo isku dayay inuu badbaadiyay gabadh shaqaale ka ahayd diyaaradda bir afle ayaa caloosha kaga jirtay aadna way u dhaawacnayd Lori waxay u oroday xaggiisa waxayna ku guulaysteen inay ka soo saaraan diyaaraddii burburtay waxa kale oo burburka ku jiray gabadh la yidhaa Amber oo ilmo yar wadatay duuliyihii wuxuu Lori ka codsaday inay baarto diyaaradda si ay u caawiso qof kasta oo nool waxaynu ogaanaynaa in inta ugu badan rakaabkii ay dhinteen 6 qof oo kaliya ayaa shilka ka badbaaday kuwaas oo kala ah Lori Daniel oo ah duuliyihii Beth oo ah nin ganacsada ah Amber iyo ilmaheedii Felix iyo Jack oo ah nin waayeel ah oo aqoon fiican u leh caafimaadka maadaama Jack waa aqoon fiican
fiican u lahaa caafimaadka. Wuxuu isku dayay intii karaankiisa ah inuu daweeyo dadka dhaawac ah. Nasiib darro, gabadhii shaqaalaha diyaaradda ahayd way dhimatay, taasoo qof kasta ka dhigtay mid aamusan oo murugaysan. Kooxdii waxay ogaadeen inaysan jirin wax khad ah ama network ah gudaha jasiiraddan. Waxay go'aansadeen sidii ay u ururin lahaayeen wax kasta oo waxtar u leh sida cuntada iyo biyaha si ay muddo ugu sii noolaadaan. Lori waxay ka murugaysneed ilmaha yar gaajadiisa. Waxay go'aansatay inay jasiiradda wax uga soo baadho, laakiin intii ay dhex lugaynaysay hawdka waxay aragtay goob biyo fadhiyaan, taas oo ay ugu dambayntii ku aragtay xaas fadhiya meesha, waana ay ka soo carartay. arrintaas oo cabsi ku sii kordhisay kooxdii. Iyadoo kooxda ku go'doonsan tahay jasiiraddan, qofna ma garanayo waxa dhici doona. Si lama filaana waxay arkeen markab meel fog maraya. Waxay go'aansadeen inay dab shidaan si ay qiiqa ugu muujiyaan markabka, laakiin markii ay Lori furtay boorsadeeda si ay u soo saarto laytarka, way weyday laytarkii, waxaana ay ogaatay in qof uu ka xaday. Tani waxay dhalisay dood iyo tuhun dhex maraya kooxda. Intii ay murmayeen, markabkii wuu ka fogaaday goobtii, waxayna lumiyeen jaaniskii ay ugu bixi lahaayeen jasiiraddan. Markii dambe, Lori iyo Jack oo geedaha ka soo ridanaya midho ay cunaan, waxay helayaan bacda shukulaatada oo lagu qariyay geed dhexdiis, taasoo caddaysay in qof uu cunto xaday. Waxay u tagtay kooxdii, waxayna u sheegtay in qof iyaga ka midii uu xaday shukulaatada, waxaana halkaa ka bilowda dood. Halka qaar ka mida kooxdu ay ku eedeeyeen odaygii Jack ahaa. Sidoo kale, Jack ayaa sheegtay dembigaas, laakiin Lori ma rumaysan arrintaas, taasoo ogeyd sida uu qalbi fiican yahay Jack. Halka Jack uu dareemayay in culays ku yahay dadka kale, murugana uu qabay xaaskiisii ku dhimatay shilka. Wuxuu go'aansaday inuu badda isku tuuro si uu noloshiisa u soo afjaro. Isla daqiiqada kadib, Lori ayaa soo gaadha goobta, waxaana ay aragtaa dharkii odaygii Jack ahaa oo yaalla badda agteeda. Ugu dambayntiina waxay kooxdu ogaanaysaa inuu isdilay. Sidoo kale, Lori aad ay uga murugootay geerida Jack. Maalintii dambe waxay arkayeen saxaarad weyn oo badda sabaynaysa. Kooxdu waxay go'aansadeen in qof ka mid a iyaga uu soo qorto saxaaraddaas. Waxaa laga yaabaa inuu ugu jiro cunto ama biyo. Kooxda intii kale waxay ka baqeen inay qaataan riskiga, iyagoo sheegaya in goobtu halis tahay haddii ay ka boodaan jarkan oo ay badda galaan. Laakiin Lori oo ahayd geesiyeed waxay isku tuurtay jarkii dheeraa si ay u gaarto foostadaas, iyadoo u malaynaysa inay cunto ku jirto. Laakiin markii ay gaadhay, waxaa ku karqoontay biyihii iyadoo ku quustay badda. Nasiibwanaag, Felix ayaa badbaadiyey, wuxuuna sidoo kale soo jiray saxaaradii weyneyd. Markii ay fureen saxaaradii, waxay ka heleen mashiinada timaha lagu qalajiyo, taasoo niyadjab ku noqotay kooxdii. Laakiin Felix wuxuu la yimid fikrad cajiiba. Wuxuu yidhi, xargaha mashiinadaas waxaa loo isticmaali karaa in lagu xidho qoryo si looga sameeyo doon yar. Ugu dambayn, waxay sameeyeen doon yar, laakiin waxay qaadi kartaa hal qof oo keliya. arrintaas waxay ku qasabtay inay qof iska dhex doortaan, waxayna doorteen Felix inuu raaco doonta maadaama uu xoog badnaa, sidoo kalena uu ku badbaadi karayo. Isla markaas, Felix wuxuu baray Lori sida loo soo qabto kalluunka maadaama uu ka tegayo. Waxaynu aragnaa in Lori iyo Felix ay dareen isku qaadeen habeennimadii. Kahor intaanu bixin Felix, Lori waxay siisay kaadhkeeda bangiga si uu u isticmaalo haddii uu gaadho tuulada kale, wuxuuna ku ritay kaadhkii shandada. Laakiin habeenkii, duuliyihii dhaawacna ee Daniel ayaa xaday boorsadii Felix iyo doontii si uu keligii u baxsado. Lori ayaa isku dayday inay joojiso, balse wuu diiday. Ugu dambayntiina waxay ku dhaawacday qorigii kalluumaysiga, laakiin Daniel uu ku guulaystay inuu baxsado isagoo dhaawacan. Sheekadu waxay dib ugu noqonaysaa isla hadda. Kadib markay Erin tagtay dukaankii, waxay heshay muuqaal kaamiro ah oo muujinaya qofkii isticmaalay kaadhkii lacagta ee Lori, balse waxay ogaanaysaa inuu yahay isla duuliyihii waday diyaaraddii burburtay ee Lori saarnayd. Waxay raacday adreeskiisa ilaa ay ka heshay gurigiisa. Halkaas waxay kula kulantay gabadha uu dhalay Daniel. Kadib waxay tastaafuuriyey kaamiradu duubtay, taasoo muujinaysa in Daniel uu nool yahay. Gabadhii way ilmaysaa, waxaana isku raacaan guri kale oo ay Daniel ka helayaan. Kadib markay gaadhaan guriga, waxay baadhaan gurigii, waxayna aragtaa sawirka Daniel iyo gabadhiisa runta. Waxayna ogaataa Erin in gabadhan la socota uusan dhalin Daniel. Sidoo kale, Erin waxay heshaa shandada ay ka buuxdo lacag, balse isla markiiba waxa u soo gashay gabadhii, waxayna ku qabataa Erin baaskoolad, iyadoo ogaatay in arrinteedii ka fashilantay. Balse Daniel ayaa yimid oo badbaadiyey Erin kadib meeshii ka soo kaxeeyey. Markay meel kala tagaan, Erin waxay weydiisaa wax ku saabsan walaasheed Lori inay badbaaday iyo in kale. Daniel wuxuu u sheegay Erin in Lori ay dhimatay, laakiin Erin way rumaysan weyday arrinta. Waxayna gudaha ka dareemaysaa in Daniel uu been u sheegayo. Inta ay sii wada hadlayeen, moobilka Daniel waxaa soo garaacda gabadhii ay ka soo baxsadeen, iyadoo u sheegaysa inay afduubatay gabadhiisa saxda ahayd, ayna dili doonto haddii uusan u imaanin. Kadib Erin ayaa raacday Daniel, waxayna ku dhuumatay guriga dabadiisa. Halka Daniel uu galay guriga isagoo u tagay gabadhiisa iyo naagtii kale, waxaana ka dambatay Daniel inuu dib ugu celiyo jasiiradda uu shilku ka dhacay, haddii kale ay dili doonto. Daniel wuu ogolaaday, waxayna kireysteen diyaarad gaar ah. Halka Erin ay si qarsoodi u raacday diyaaraddaas. Markii ay gaadheen jasiiradda, waxay ku degeen goob ka yar fog meeshii kooxdu joogtay. Naagtii iyo Daniel waxay ka degeen doontii, halka Erin ay bilowday inay raadiso Lori. Dhanka kale, kooxdu waxay ku
jireen nolol farxad leh oo mid walba midka kale ku qanacsanaa iyagoo raba inay halkan iska sii joogaanba sidoo kale Lori iyo Felix way sii jeclaanayeen laakiin Lori waxay gudaha ka dareemaysaa in walaasheed ay u xiistay laakiin habeennimadii Lori waxay ogaataa in Amber ay ahayd qofkii qasaday laytarka maalintii ay rabeen inuu gubaan qoriyo si ay u soo jiitaan aragtidii markabka halka Amber ay isdifaacayso Lori waxa u sheegtaa haddii ay siin lahayn maalinta laytarka inay hadda joog lahayn guryahooga Amber way murugootaa waxayna qirataa inay qalisay laytarka sababtoo ama aysan rabin inay dib ugu laabato nolosheedii hore ee murugada ahayd kadib marka ay kala tageen habeennimadii waxay maqlaan qaylada Beth waxayna u cararaan dhankiisa kadib waxay u tageen isagoo ooyaya waxaana uu sheegay in khilaaf yar uu ka dhex dhacay isaga iyo Amber kadibna ay xanaaqii badda gashay oo ay isdishay Felix wuxuu bilaabay inuu soo raadiyo Amber halka Lori oo taagneyd meesha ay aragto sawir hore oo ay wada galeen Beth iyo Amber kadib Lori waxay weydiisay sababta aysan ugu sheegin kooxda inay hore isku yaqaaneen isaga iyo Amber halka Beth uu isku dhex yaaco ugu dambeyntiina Lori waxay ka shakidaa in Beth uu dilay Amber halka Beth uu dareemay inay ka shakiday kadibna uu soranay soo afjar halkaas oo uu ku weeriyanayo iyaduna ay ka cararayso dhanka kale ee jasiiradda Lori waxay la kulantaa Daniel oo iska qarinaya gabadhii kale wuxuuna ku yiraahdaa si aan ugu tagno walaasha Lori iyo kooxdii halka ay joogaan waa inaanu ka baxsanaa gabadhan Erin waxay bilowday inay xadda doonta halka Daniel oo isaguna yar u jira inuu soo gaadho doonta ay naagti xabad dhabarka kaga dhufanayso laakiin nasiib wanaag wuxuu soo gelayaa doonida isagoo u muuqda mid sii dhimanaya balse inta uusan dhiman wuxuu runta u sheegayaa Erin isagoo leh in diyaaradii qaraxday eerarkaa ku saarnaa taasoo uu duuliyaha ka ahaa aysan si shil ah u qarxin balse ay iyagu qarxiyeen waxaana la tusayaa ka hor intaysan kicin diyaaradii ay la socotay Lori isaga iyo Beth oo qorsheynaya inay diyaaradda shil geliyaan Beth wuxuu lacag badan siiyey Daniel si uu shil u geliyo diyaaradda isagoo raba in shilka ay ku dhimato xaaskiisa Amber taasoo uur u lahayd isaga laakiin uusan rabin iyada ugu dambayn shirqoolkii wuu fashilmay waxaana ku dhintay dad kale halka aynu ogaanayno gabadhan eryanaysa Daniel in familkeedu ku dhinteen diyaaraddaas oo ay doonaysay inay disho Beth ugu dambayntii Daniel uu dhintaa kadib markii uu Erin u sheegay halka ay ka jirto jihada dadkii ka badbaaday shilka oo ay ku jirtay walaasheed Lori aroornimadii Erin ugu dambayntii waxay heshay walaasheed Lori oo ka dhumanaysa Beth way isku farxaan kadibna Erin waxay ka codsataa walaasheed inay ka tagaan halkan sida ugu dhaqsaha badan balse Lori ayaa u sheegaysay in ilmihii yaraa ee ay ka dhimatay Amber aysan uga tegi karin halkan oo ay rabtay inay soo qaado balse inta ay sii socdaan waxa ku soo baxa Beth oo Felix qoorta kaga haya mindi isagoo u sheegaya inuu dili doono haddii aysan siinin furaha doolta inta ay sii hadlayaan Lori ayaa qori ku dhufata Beth halka Felix uu iska furay gamcaha Beth ugu dambeyntiina Lori ayaa ku dilaysa Beth halkaas intaa kadib Erin waxay ka codsanaysaa walaasheed Lori inay gurigii ku laabtaan laakiin Lori waxay go'aansatay inay jasiiradda kula noolaato Felix iyo ilmihii yaraa ee Amber ka tagtay Erinna waxay gurigii ku laabatay keligeed filimkeena wuxuu ku dhammaanaya iyadoo Lori ay uru leedahay Felix kuna nool yihiin farxad iyo nabad jasiiradda cusubta channelka subscribe saar siina share gare mahadsanid